فرحي فيسك والله أروسي إلهي هأبركي بكس فرحي فيسك ما أركتا واربا إنا أركو أيضا يوتيوب سميستي أو حان كده هي نصتي أو عد كذا سوء عشتي أو ننجعل قبا مثلتي والله بلا فرحي فيسك واقف هناك سوا مسكين وأقول أمله بفرحي فيسك وحاوا قبلها الصومالي الفنانين هو وين كنت شرطة مكتئب قروح لنا واي هذا كور باركتي أيانا اللي ديتشر فرحي فيسك وقت مكسر وحان كده بلا إسكت ديتشر والله بينا مليسا بيكوز قروح لي واي إنك تسمكت قروح لي واي لكن بالوضع هذا الشيء وحنا كده بس غير كده قمت بالوضع كربت مكتب فرحيه والله بين لسا انا وحالي ديتشر فرحيه واكتسا وفرحت إلهي هاو بركيه فرحيه فسكي هذا انت يوتيوب كسو جلسي iyo inta aroos nin cusub soo gelisay waa isla egyihiin marka dumar badan baa ilaa 2010kii ninkii markuu furay ilaa maanta 10 iyo something nin la'aan haysa iyadana sanad walba nin bay aroosaysaa waa maxay sirta ku duugan ma dadka lacag bay siisaa ma quruux bay ku soo jiidataa ma jacayl bay ku soo jiidataa ma isweydiisan ala kulli xaal waxa la yiri meydkee u dambeeya midka hadda la sii wado hadda ninkii yarkii mubaarak xanfaryare ninkii musicianka walaalkiisa ahaa ma adeerkiisa dhalay ma adeer u ahaa oo walaalkiisa dhalay mubaarak October kaabay hadda hargeysa aroos ku qabsadeen inkastoo dumar badan beriyahee dambe la oday baa baxayo oo Soomaali tagaayo oo gabar yar buu iska soo guursanayaayo abuse child macnaha waxa waaye maadaama boqoradii codka tahay waxaan dhahayna ma laha laakiin child abuse meesha uu ku jiraa hada ya farxi filka wiilka way dhali kartaa 10 jeer bay dhali kartaa كودة horta mar waa duco ninba ma weyso marna waa habaaro guurkeeda ma raago marka waxaan idin leeyahay maxaad dhahaysaa ma waxaad leedahay child abuser miya mise jacayl waaye waxay ku guursatay say idin la tahay idinka hase ahaatee say idinkuna nin la'aan ku tihiin 5 sano 6 sano 7 sano 8 sano 9 sano hal mar hadii la soo furay akii labaad ugu saray la aadihin iyadana sodomeey u maraysa sirta ka dambaysa waa maxay sababta yaa sheegi kara sax miya ma qalad baa inay maanta saqiir guursato ma dhigi kare laakiin sax miya ma saqa waa qalad wala adiga ma hadda dhibaatada ay haysato fanaaniinta kale ilaa mudlamado ani hadda sawir isla galay ya hadda sawir isla galay wada ningaala hada waa isqabaan ani adiga ayaadna aroos ahayn waxa la yaabay TikTok markaa soo galo waxa ku arkaa hawiye iyo daarood baa game ciyaaraya daarood baa guuleystay hawiye saana daarood baa kana beenta inta iska dhaaftaan waxa guuleysateen ma jirto daaroodow gabdhihiini baa meel kasta ku dayacan istusnimo iyo show baa taqaanaa ilmahayga intaa la iga qaadanin Umar Maxamuud magaalada waa dhawaan yihiin oo u tagay maxaa la igu dhahay ma taqaanaa leelka saraadso because wiilkayga leelka soo ah hadaba mid baa idii sheegaya leelka soo wadaa ima qashaan ninka ilmahaas dhalay soo raadiya ilmihiisa aqaato ani inaan waasho diyaar umihi waxaa rabaa nolosheeda inaan ku noolaado oon faraxsanaado sida dadka oo dhan ay u faraxsan yihiin ma doonayo murugo stress baa igu rideen
fadlan noo saar subscribe ilaahay khayr ha ku siiyo wax degdegaad ku faraxdo ilaahay ha ku siiyo ku soo biir xaq soor TV ana wararkii ugu dambeeyay ayaan ka dabageenayaa sida halka ku aragto fanaanada caanka ee Farxiyo Fiska oo aynu ognahay inay guursatay oo meherkeeda oo shalay Hargeysa ka dhacay oo $1,000 oo lacagta Mareykanka waxa weeye saa meherkeeda u dhacay markii ay maqreenay la sheegay fanaanadan oo muuqaal soo duubtay ayaa ka cabanaysa Soomaalida fanaanadan ayaa sheegtay waxa weeye qof kasto oo isla soo sawirto oo nin ah in lagu yiraahdo way is guursadeen dad fara badan oo fanaaniin ah ayaa waxa weeyaan ay aad uga cabatay oo waxa weeye ka soo cawday oo yiri waana la soo cambaareeyay oo reeraha iyaga baa nax soo qacay oo nagu yiri ma inantii Farxiyo Fiska ahayd bay is guursatay runtii Farxiyo Fiska oo hadda guursatay ayaa iyaduna bismillaahirrahmaanirrahiim baraha bulshada sidaas halkaa ku aragto waxa weeyaan mubaarak aabihii oo waxa weeye muuqaal soo duubay mubaarak waa ninka qaba Farxiyo Fiska guursaday haddaba waxa loo baahan yahay caqli ninkan muuqaalka soo duubay horta aabihii maaha bismillaahirrahmaanirrahiim halka waxaan ka salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta marka hore tahniyad aroos ayaan halkan ka dirayaa waxaan u tahniyadeynayaa wiilkayga fanaankaygana waana wiilkayga hadda mubaarak October ayaan u dirayaa tahniyad iyo Farxiyo Fiska oo arooskoodu ka dhacay magaalada Hargeysa tahniyad aroos ayaan leeyahay waxaan leeyahay wiil iyo caano iyo gabar iyo caano ilaahay hayna kala siiyo barkad tan kale dadkan media ka hadlayaan sheegaya aniga waan dhalay waxa weeyaan qofka dooqiisa isaga xor u ah isaga wuxuu yahay jooska kale anigu jooska malihi maadaama aan waarag anigu dhalay jooska isagu anigu malihi isaga iskale marka hadduu gabar ka weyn guursado hadduu gabar ka yar guursado anigu markasta waxaan leeyahay hambalyo waan ku faraxsanahay si aad aan wali ugu faraxsanahay oo aabihii waxaanu aragnay iyadoo la wareysanayo 2015 may ahayd mubaarak yare oo waxa weeyaan in ku sugan garoobe waxa weey Boosaaso ku sugan mubaarak yare wuxuu ahaa 15 shir 2015 imisa ka soo wareegay maanta waa 21 shir ninkan muuqaalka soo duubay waa nin aan raadisa oo baraha bulshada muuqaala been abuura soo galiyay isagoo sheegay inuu yahay mubaarak aabihii balse daawadayaal badan ayuu ka helay sidaad halkaa ku aragto war la yaab leh fanaanadii hore ee Deeqa Afro oo qoraal dheer soo qortay ayaa sidan oo kale ku soo daabaaday horta su'aal ayaa meesha ka taagan Deeqa Afro goorma ugu dambeysay daawada inantii Deeqa Afro ahayd xagee bay ku dambeysay ma aragtay Deeqa Afro meelay ka soo hadlayso inantii waxa weeyaan guursan jirtay dadka cawaaneenta ee muuqaalada iskala soo duubi jirtay ee tiri ninkaasaan shiciraaday iyo inantii oran jirtay geedi saara inantii muuqaalada la yaab kale baraha bulshada ku soo faafin jirtay xagee bay ku dambeysay qoraal dheer oo ay soo qortay ayay ku sheegtay inay shawyo fara badan Yurub ku qabanayso waliba maalmaha inagu soo foodka 30 bisha Sweden waxay ku qabanaysaa show heer caalami ah oo aan hore loo arag wayna sugi doonaa waxba kama hareen waxa ka haray dhowr maalmood وفنانada Deeqa Afro oo aynu u xiisanay oo aynaan arag meel ay ku sugan tahay ama macal muuqaal yar oo soo duubtay aynaan arag hatta sawir ay soo galisay baraha bulshada oo miyaa la guursaday oo miyaa ognahay waa Deeqa Afro oo markan sheegtay inay fankeeda boorka ka soo shafi doonto Deeqa Afro ayaa heesaheeda waxa aad u taageer jiray dumarka Soomaaliyeed maadaama oo ay ahayd karbaash badan heesaheedu ay ku karbaashi jirtay ragga dumarkooda waxa weeye ay isku dhacaan ama isxumeeyaan sida halka ku aragto caawa ruqyo oo waxa weeye ku dhibaataysan magaalada Hargeysa waa gabadh reer Muqdisho ah oo waxa weeye aad dhibaato ay u haysato runtii dhacdadan halka horta kala xidhiid waxa ku dhacday dhacdo xanuun badan ruqyo waa gabadh haysata 4 caruura waxay deganeed berbera way ka soo guurtay berbera ninkeedii oo ahaa dadka dhismaha ka shaqeeya uu geeriyooday maanta waxba ma haysato daawade waxaad u awoodda halka ugu dir waa ruqyo aadan iyada si toos ah kaga qabanaysa waxay ku sugan tahay Hargeysa la hadal waxaad awoodana halka ugu dir adigana Ilaahay wax bedel waxaad u dirto adigana Ilaahay bedel khayr qabaha kugu bedel sida halka ku aragto gabadhan oo waxa weeye muuqaalo murug iyo oohin ah ku soo duubtay baraha bulshada runtii caruurtii ayaa gabadhan laga qaatay
gabadhan oo aada uga cabanaysa ehelaadkeeda ayaa sheegtay inaanay cidna caawin ka helin waxay sheegtay gabadhan inay waali ku dhowdahay oo ay u maraynaysa maalmaha soo socda inay isku dhufan doonto waa gabadhaas oo waxa weeye aada uga cabanaysa ehelkeeda oo aan caawin oo waxa weeyaan kolley gabadhan waxay ku oyday waxay u baahan tahay caawin gacan qabasho ah iyo caawin isgarabtaagahoo lagula soo caawiyo ilmaheedii oo laga qaatay waa gabadh yar oo dhalinyaro ah oo aad arkayso siday u silcayso muuqaalada oohinta ah maadaaman halkan loo ogoleyn ma soo qaadan karo wararka yaab kale faraqayn doonaa waxaan kuleeyahay bilow ilaa dhammaad ila soco inantii farxiya fiska ahayd ayaa markuu arooskeedu dhacay muuqaala soo duubtay kolley qofba si u soo faranqeeye arooskii farxiya fiska qofba si u soo faranqeeye oo maynaan arag meri horta aroos ku dhigatay balse meherkeedu wuu dhacay arooskeeduna xilligu dhici doono ma ogin kolley hadda dadka waaweyn aroosba ma dhigtaane way alla baryaanuun oo waxa weeyaan bedda shawre iyo ducooyin iyo waxaasaa la samaystaa markaa inantaas waxay aada uga cabanaysaa horta farxiya fiska waxay ku sugan tahay hargeysa iyo shigshiga muddo aada u dheer taruma 6 bilood meelahaasa markan waxay sireen fanaankaa da'da yar ee reer garoobe ee reer boosaaseedka ah waa wiilkan yar uu ka soo jeeda xagga deegaanada kolley dadku ma fahansana waxay moodayaan wiilkani inuu reer hargeysa yahay waa wiil reer garoobe ah ama reer boosaaseed baan u sheedaa markaa mubaarak yare waa adiga arkaya inay maanta noloshii ku midoobeen iyo farxiya fiska oo ka cabanaysa soomaalida oo hadday sawir nin la soo gasho la odhanayo markiiba hiblaaye isguursadeen farxiya fiska guursatay baa markiiba la odhanaya sababtoo ah waa fanaanada ugu guurka badan fanaaniinta soomaaliyeed sidoo kale halkaa waxaad ku aragtaa waa gabadh dhalinyaro ah oo ku sugan dalka qurbaha oo silcaysa gabadhan ayaa waxa weeye muuqaalo oohina kusoo baahisay baraha bulshada runtii muuqaaladan oohinta ah ee aynaan soo qaadan karin aad ayay u dhibaataysantahay weliba waxay sheegtay in ehelkeedu ay isgarab taagi waayeen oo waxa weeyaan siday u hadlayso adaguba aad ka dareemayso inay dhib weyn haysato gabadha